مسؤوليinta madaxda taageerayaashii ururkii hadhay ee ummadda ee magaalada Ceergaabo ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray xisbiga wadani munaasabadan ballaaran oo si mug iyo miisaan culus loo soo agaasimay oo ay ku midoobayaan xisbiga wadani iyo ummadda ayaa ka dhacday hoolka shirarka Mowraan ee magaalada Ceergaabo waxaana madashaasi ka soo qayb galay inii ugu miisaanka cuslaa ururka hadhay ee ummadda oo ay ka dhex muuqatay siyaasi Nuura Faarax Jaamac iyo gudoomiyaha ururka ummadda ee gobolka Sanaag iyo waliba Abwaan Mustafa Khashab salaadiin cuqaal waxgarad haween iyo dhalinyaro ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah ururka ummadda oo shaaca ka qaaday inay ku biireen xisbiga wadani وافقانه lagu cadeynayo waafaqaano lagu muujinayo in dhammaan ururkii ummadda ee ku haray tartankii doorashooyinka walaasha deegaanka uu si buuxda ula midoobay ururka wadani dhammaan taageerayaashii uqaashii haweenkii iyo waxgaradkii ururka ummadda ee gobolka Sanaag waxay ku biireen xisbiga wadani marka ay labadihi gudoon goob isugu tageen markii la shireeyay la shawre shirkii la galay markii la fakiray markii faladeel la galay markii la gorfeeyay talo ee go'aan la jaray ayaa haba laga hadhay inay goob isugu taga ayaa haba laga hadhay waan cadeynaa haddaan nahay garabkii ummadda oo gudoomiye ahaa Maxamed Cabdi Gaboos waxaanu cadeynaynaa inaanu ku biiray xisbiga la yiraahdo wadani dhinaca kalena mas'uuliyiinta madaxda iyo taageerayaasha ururka wadani ayaa soo dhaweeyay asxaabtooda hore saaxadda siyaasadda oo kala hirdhaysay anigoo ku hadlaya magaca xisbiga wadani ana halgabayaashii muddada dheer ku soo jiray xisbiga kana mid ah maamulkii gobolka ee tayada wanaagsan lahaa waxaan leeyahay waanu soo dhaweynaynaa urur siyaasadeedka ummadda gabagabadiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay siyaasi Nuura Faarax Jaamac oo madaxweyne Siinaayo ugu baaqday inaanu marnaba daba fadhiisan Xasan Sheekh Maxamuud kana hadashay marxaladaha qalafsan ee haatan dalku marayo waxaan halkan ka cadeynaynaa haddii aanu nahay urur siyaasadeedkii ummadda ee baaxadda weynaa ee laga caanka ka noqday gobolada Soomaaliland dhammaantood waxaan halkan ka cadeynaynaa horta waxaan leeyahay waana la dulmay dulmigaasna waxaanu kaga gudubnay samirkayaga iyo hogaamiyaha daacadda ah Dr. Maxamed Cabdi Gaboose kiina la dulmay waa qaadanay doctorkayaga oo ah nin qaali ah oo siyaasi ah oo runtii u beer nugul dhibaatada dalkiisa iyo dadkiisa ayaa wuxuu ka xishooday inuu dalkan iyo dadkan dhibaato geliyo sidaa daraadeed gudoomiyuhu wuxuu amar ku bixiyay in urur siyaasadeedkii ummadda uu kaaftoomay inkastoo aanu qaadacay doorashadii haddana waanu qaadanay anagoo u tirayna dadkayaga maanta munaasabada qaaliga ee sharafta badan ee qaashi reer Sanaag ugu caansaneed fadhido ama haweenkii reer Sanaag ama dhalinyarada reer Sanaag ama uqaashi iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii waxaanu ku shaacinaynaa haddii aanu nahay urur siyaasadeedkii ummadda in aanu si taageero mugle oo baaxad leh isla garab taagayno xisbi siyaasadeedka xisbiga wadani haddii aanu nahay anagu urur xisbiga wadani baanu maanta ku leenahay afayga ka sheegaynaa waxaanu aad u dhaliilsanahay siyaasadda Soomaaliland ee arrimaha dibadda waxa wax lala yaabo noqotay in dawladda maanta ka jirta Soomaaliland aanay kaga jirin kaalintii dawladii hore kaga jireen siyaasadda arrimaha dibadda waxa wax la sii yaabo noqotay waxa la sheegayaa shir baa laga qabanayaa London bisha shanaad sanadkan hadii la yiraahdo waxa aan ognahay oo ay xogaal sheegayaan in loo xulayo dad aan la garanayn cid ay yihiin ama dawladda kale ay raydana gaara taana dawladda waxaan baaq ugu direynaa inay arinta ka fiirsato anu muqdisho ka yimi oo aan hadda u badanahay laakiin waxaan ma ogoli Soomaaliland arinteed gorgorta inay gasho waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland inaanay arinta Soomaaliland dhulka dhigin arinta Soomaaliland ay kor u qaado arinta Soomaaliland aanay kula gorgortamin meel aanay khusaynin shirka London waxa sheegarinaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland waxba ma yaalan barnaamijsanay anigu waxaan u sheegayaa dawladda ama haddii aanu nahay xisbiga wadani dawladdu inay ka fiirsato xubnaha ay u direysay qurba joogta lagu sheegayo ee ay u hoggaanayso arrimaha Soomaaliland waxaan cod dheer ku sheegayaa haddii aanu nahay xisbiga wadani shirka uu madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo sharafku mudan yahay madaxweynaha dalka waxaan u sheegaynaa madaxweyne
كفيرسو يعني لو هوس دقي وحن مسكب كاجا هين كفيرسو شركة لندن وحي سومالنا نقول جرا هدي وقت عيني وانا نقول جرو ماذا حوينا كلام تشتلك لكن حتى الشيخ محمود يوكو شجرين هذه قام ماذا حوينا قرنكا أحمد كيسي إسماعيل مندق نيوس عرقابو